waxa uu bixiyay waxa uu nabadaa ka daran dispute area waa kelmad halhayskeedu maanta aad iyo aad shacabka SSC qulubtooda u ruxday kana soo baxday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dispute area dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mashruuci baxnaan ee madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo daafuray kuna sheegay 1 milyan iyo bar Soomaali ah in lagu maalgelinayo dhaqaale dhan 4 milyan oo dollar ayuu deegaanada SSC markii uu qaybinayay waxa uu yeeray dispute area dhulka lagu muransan yahay. kelmadan haddaba haddii aynu falanqeyno magayaan goboladani maxay kaga duwan yihiin gobolada kale ee Soomaaliyeed buranka siyaasadeed ee ka jira dad badani ma dhaadana laakiin inaanu dul istaagno ayaanu haatani u soo qaadanay mikrofoonka ee dhugasho wanaagsan hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley halkani waa gudaha magaalada Laascaanood waa habeennimadii madaxweyne Farmaajo la doortay shacabka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxa ay sameeyeen isku soo bax iyagoo markaasi beerka iyo laabtaba u dhigtay xabadii ay ridayeen maamulka gooni goosadka ah ee xilligan madaxweynuhu tixgeliyay afkaartiisa isla markaasina ugu yeeray gobolka Sool dispute area. markale buuhoodla waatanyana waa gobolkii calanka madaxweynaha ayay sidata sawirka madaxweynaha ayay sidata calanka Soomaaliya way ruuxaysaa abaalkeeduna waxa uu noqday dispute area iyo inaan laba soo hadal qaadin. haddaba aan halkaa ku soo ururiyo warbixintan ee aan dib ugu laabto dispute area iyo weedhan qadhaadh ee ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya. arrinta isweydiinta mudan ayaa ah gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee Soomaalidu ku muransan tahay maxay kaga duwan yihiin dhulka kale ee Soomaalidu ku muransan tahay maxaa iyagu ay ku geeyeen ama loogu yeeray dispute area. madaxweyne Farmaajo xukuumadda hogaamiye iyo maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe waxa ay isku haystaan Jubbaland taladeeda dhulkeeda iyo xukunkeeda isla markaana ugu yeerin dispute area. sidoo kale Galmudug iyo Puntland waxay markaas isku haystaan muran dhuleed oo ka dhex taagan gobolka Mudug cid ugu yeedha dispute area ma jirto. haddaba Soomaalida gobolka Sool ku nool maxaa iyagu ay ku mutaysteen dispute area. madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisu waxa ay dagaal dheer u galeen sidii ay Axmed Madoobe uga xoray lahaayeen Jubbaland isla markaasna waxa ciidamo iyo kumanaan malaayiin dul dhigay gobolka Gedo oo deegaan ahaan madaxweynuhu ka soo jeedo. haddaba madaxweynuhu haddii uusan awoodeyn inuu Sool ka xoreeyo gooni goosadka oo ka fog Axmed Madoobe ma waxa uu abaalkoodii noqday shacabkii dhulkaasi ku noolaa dispute area. hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abohor gabyama walaga hagaadhay. si kastaba ahaatee warbixinteennan intaas ayaan kusoo koobaynaa. la soco qaybaha dambe ee warbixintan channelkeena ha ilaawin subscribe-ka